askarta dufcadii guutada gorgor oo maantana soo gaartay 26 ah bishii 9aad 2020 waxaan idin leenahay soo dhawaada insha Allah ta'ala waxaan subaxnimadan aroortaan aan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala dufcooyin idinka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagi aan idin direynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanayo oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha Allah ta'ala ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxa ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa rantii lagu farxa ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan insha Allah ta'ala ilaahay idinkiisa waa noqonaysaan waa mahadsantihiin runtii sida juhdiga adag aad u bixiseen uguna diyaar garowdeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarna aad ugu tihiin inaad dalkiina dadkiina baad xureysaan insha Allah ta'ala hool adag ay idin sugaysa oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysa waxaana ka mid tihiin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad ogtihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshuu ka soo bilaabday Generaal Daa'uud waagu loo dhiibay sidoo ahaa iyo waayadii damba 8 sidoo noqday maanta waxaan taaganahay dib u dhis ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib loogu dhisayo marka waxaad tihiin base ama bilow aad iyo aad u wanaagsan oo astaan u ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa waqti dhow oo aad iyo aad u dhow inaan noqono libaahyada Afrika sidiina lagu yaqaanay sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed aad u hooydeen mid la mid ah inaad gaartaan oo aan gaarnaan rajaynaynaa waqtiga dhow insha Allah ta'ala waxaan nasiib u hesheen taliya oo dhalinyaro ah oo idinka oo kala ah oo yaqaana baahidiina dhibaatadiina garab istaagayo oo ka turjumay waxaad kaloo haysataan wasiiro ama wasiir wasaaradda gaashaandhigga oo nin dhalinyaro ah oo asigana runtii ay ka go'an tahay in ciidankan dib u dhismo inuu ciidankani oo dib u yagleelo oo runtii awoodii uu lahaan jiray inuu yeesho aad iyo aad u jecel habeenii maalin taasoo daliil u ah maanta subaxnimada inaan idin imaano runtii waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo meesha ugu mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii asigana qayb ka ah inuu ciidankani dib u dhismo hadda leadershipku uusan raali ka ahayn maanta meesha soo gaartay ma soo gaareen marka taas waxay daliil u tahay inuu madaxweynihiina uu diyaar u yahay inuu ciidankan dib u dhismo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo wasiirkiisaas oo kale taliyay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay marka taas waxay daliil u tahay inaan dhabbadii aan hayno oo ciidankeena dib ugu dhismi lahaa insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantihiin xaqiiqdii ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inay ciidankooda garab istaagaan maanta saraakiil xigeenaha baxay waxaa noo imaaday isha cutub oo ka tirsan guutada gorgor berritana kuwa kala imaan doona maalmaha xigana kuwa kala noo imaan doona insha Allah ta'ala marka sidaa daraadeeda astaantii iyo waxaan haynaa wadadii waxaan haynaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka Soomaalida waxaan leeyahay oo walaalaheena ee dibadda ee dalkaba joogan ciidamadooda inay garab istaagaan dal aan ciidan lahayn dal ma aha ciidanku waa astaanta qaranka marka ciidankeena aan garab istaagna aan u duceyno waana duceysantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh